wardegdega daawadayaal dagaal u dhaxeeya ciidamada guutada Birjeex ee Jubbaland iyo ciidamo kale oo daacad u ah madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Madoobe ayaa ku dagaalamaya deegaan lagu magacaabo Baghdad oo aan sidaas uga fogeen magaalada Kismaayo isla markaana aad deegaan xebeed ciidamo ka tirsan kuwa guutada Birjeex ayaa xiriir la sameeyay ciidamada dawladda ee ku sugan Raas Kaambooni waxayna doonayeen inay goostaan waa laga warhelay iyaga iyo taliskoodii ay ka amar qaadanayeen iyaga oo doonaya inay doomo ku baxaan ay ogaadeen ciidamadaas daacadda oo Axmedoobe waxaan halkaas ka dhacay dagaal foolka tuuladan waxaa lagu magacaabaa Baghdad Kismaayo ay u dhowdahay waana magaalo xeebeed waxaana ka dhacay dagaal saacado qaatay oo ilaa iyo hadda socdo sida la soo warinayo dhimasho iyo dhaawac lama xaqiijin wali balse waxaa jira in dagaalka uu saacado qaatay isla markaana khasaaro uu dhalin karo sida dadka deegaanka qaarkood oo aan la hadalnay inoo sheegeen ciidamadan waxay ka tirsanaayeen Birjeex iyaga iyo ragga xukumo ee taliyaasha u ahaa ayaa waxay isku dayeen inay doomo kaga baxaan halkaas iyaga oo ku wajahnaa deegaanka Raas Kaambooni oo fariisan ciidan ay ka sameysteen militariga Soomaaliya isla markaana maalmihii ugu dambeeyay ay iska dhiibayeen ciidamada maamulka Jubbaland gaar ahaan kuwa daraawiishta ah waxaa horay sidan oo kala jirtay in tuun weyn oo soo kala dhexgalay taliyaha guutada Birjeex iyo madaxweynaha Jubbaland taas oo keentay in dhaqdhaqaaqa guutadaas oo dhan la xakameeyo lana socdo kadib markii ay soo bateen ciidamada u goosanaya dhinaca dawladda ee isaga baxaya garabka madaxweynaha dib loo doortay ee Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Madoobe wararka uu helayo telefishinka Kaab waxay intaas ku darayaan in uu jiro khasaare laakiin aan la cayimin ilaa ay hadda welina ay dhacayso rasaas goosgoosa wararka qaarse waxay sheegayaan in ciidamada qaarkoodba ay sii baxeen oo ay ku jiraan gunta badda iyaga oo qorsheynaya inay gaaraan deegaanka Raas Kaambooni oo aan sidaas uga fogeyn magaalada Badhaadhe ee gobolka Jubbada Hoose sidoo kale waxaa jirta in khilaafka u dhaxeeyo dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo maamulka Jubbaland oo cirka isku sii shareerayo kadib markii ciidamadii ugu badnaa hub iyo gaadiid dagaal shalay laga dejiyay Raas Kaambooni fariisan ciidan halkaas ay ka sameysteen ciidamada dawladda ayaa hadda ku sugan deegaanka Istanbul oo dhowr iyo 30 kiiloomitir u jira magaalada Kismaayo ee caasimadda Jubbaland waxaana dhici kara had iyo gooraare dagaal dhex mara labada dhinac sida wararka halkaas ka imaanaya ay xaqiijinayaan maaha markii ugu horeysay ee saan oo kale ay dhacdo dhowr jeer oo hore ciidan ka tirsan kuwa Jubbaland ayaa isku dhiibay dawladda federaalka ee Soomaaliya gaar ahaan taliska halkaas ku sugan soo dhaweyn ayaa loo sameeyay Muqdisho ayaa loo soo qaaday waxaana loo sameeyay list u gaar ah oo ay ciidamada kaga mid noqonayaan hubkii ay wateen ayaa sidoo kale laga dhigay waxaana jira tuhumo isdaba jooga oo imaanaya kadib markii ay bataan ciidamada soo goosanaya dawladdu waxay qorsheysay in ciidamadan ay nidaam marsiiso lana keeno Muqdisho lambaro u gaar ah loo sameeyo tababar ay maraan sidoo kalena hadda iyo kadib laga dhigo askar hor leh khilaafka hadda waa uu sii xoogeysanaya waxaana jira warar soo baxaya oo sheegaya in ra'iisul wasaaraha Soomaaliya saacadaha soo aadan uu gaari doono deegaanka Raas Kaambooni taa oo ka dhignaan doonto in waarankii soo qabashada ah ee dawladdu kol hore ugu jirta Axmedoobe ay markaas ka dhabayn doonto Kismaayo hadda waxaa ka jira dhaqdhaqaaqyo ciidan oo isdiidan ama iska soo horjeeda waxaana dhaqdhaqaaqyadaasi wada madaxweynaha maamulka Jubbaland ciidamo daacad u ah hadda guutada Birjeex ayaa tuunka ugu badan madaxweynuhu ku qaba ciidamadiisa ayaana la dagaalamaya wixii warar ee guud ahaanba ka soo koray Jubbaland halkaan idin kugu soo gudbin doonaa insha Allah kulanti wanaagsan daawadayaal kuna soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya qodobada aanu caawa barnaamijkeena ku soo qaadi doono waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyay dawladda federaalka ee Soomaaliya oo maanta sameysay dawlad culus iyo dawladda oo ciidamadii ugu badnaa inta ay diyaarada ku rartay mar kale ka dejisay Raas Kaambooni haddaba waxaa la wadaagi doonaa guutooyinka ilaala qaran oo la geeyay Raas Kaambooni xogo cusub uu ka soo kordhayo safarka ra'iisul wasaaraha Soomaaliya uu doonayo inuu ku tago Raas Kaambooni ilaa Kismaayo macluumaad ayaan idinkaga heenaa wafdi horudhac u ah ra'iisul wasaaraha Soomaaliya oo gaaray magaalada Raas Kaambooni ee gobolka Jubbada Hoose ee Soomaaliya iyo ra'iisul wasaaraha isku diyaarinayo inuu tago magaaladaas xilli Jubbaland ay ku fashilantay in wafdiga ra'iisul wasaaruhu ay ka hor istaagto inay gaaraan Raas Kaambooni iyo dhaqdhaqaaqyada ciidamada dawladda Soomaaliya ay ka wadaan halkaas haddaba maxaa caawa ka soconayo magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose Jubbaland oo soo jawaabtay kadib ciidamadii aadka u tirada badnaa ee dawladda Soomaaliya ku taadgureysay maanta magaalada Raas Kaambooni ee gobolka Jubbada Hoose ee Soomaaliya macluumaad ayaan idiin heenaa warka ka soo baxay madaxweyne ku-xigeenka maamulka Jubbaland oo maanta afka furtay sheegana in filla Soomaaliya ay ka shaqeynayso in ay inqilaabto maamulka Axmed Madoobe waan idila wadaagi doonaa wararkii ugu dambeeyay ciidamadii maanta laga dejiyay magaalada Raas Kaambooni ee gobolka Jubbada Hoose ee Soomaaliya iyo safarka ra'iisul wasaaraha xogaha ka soo baxayo Jubbaland oo afka furtay arintaasina ka hadashay
warar ayaan idinkaga heenay sidoo kale waxaan idiin soo gudbin doonaa wararkii ugu dambeeyey madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame iyo Xasan Cali Kheyre oo si adag kaga hor yimaaday doorashada uu doonaya Xasan Sheekh ee ay mucaaradku diidan yihiin iyo faahfaahin arrintaasi ku aadan ayaan idiin soo gudbin doonaa war culus oo arrintaasi ay ka soo saareen qodobadaasi wixii nagu soo kordhay ayaad wararkeena caawa ku daawan doontaan haddii uu rabiid ma fadlan daawada aad iyo saaxiib nagu cusub nagu soo bir adigoo subscribe saaranayo barteena YouTube-ka rukumanayo wararkeena iyo dhacdooyinka xiisaha leh oo goor walba halkan ku soo baahino hagaag aynu ku bilaawno wararkeena isla markaasina ugu horeysiino dowladda federaalka ee Soomaaliya oo maanta soo bandhigtay dowlad culus oo ka dhan ah Axmed Madoobe kadib markii ciidamadii ugu badnaa ay dowladdu maanta u dirtay deegaanka Raaskambooni ee gobolka Jubbada Hoose ee Soomaaliya ciidamadan oo ay hogaaminayaan taliyayaasha guutooyinka ilaalada qaran ayaa maanta laga dejiyay Raaskambooni iyada oo diyaarado lagu daadgureynayo ayaana la soo bandhigay kadib muuqaal uu baahiyay warbaahinta dowladda ciidamadan ayaa la sheegay in ay gaareen magaalada Raaskambooni ee gobolka Jubbada Hoose ee Soomaaliya waana ciidamadii ugu badnaa iyada oo ay la socdeen hub iyo sanad ciidan iyo gaadiidka gaashaaman wararka naga soo gaarayo gobolka Jubbada Hoose ayaana caawa sheegayo in diyaarado hor leh ay dowladda Soomaaliya maanta ay u dirtay deegaankaasi Raaskambooni kuwaas oo ka ambaxay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya diyaaradahan ayaa siday sanadaasi ciidan iyo sidoo kale ciidamo ka tirsan kuwa ilaalada qaran ee dowladda Soomaaliya kuwaas oo markale laga dejiyay halkaasi sida ay noo xaqiijiyeen ila wareejin xilkasa ujeedada ciidamada maanta la geeyay halkaasi ayaa ah in ay xoojiyaan kuwa dowladda dhexe ee dhaqdhaqaaqyada ka dhan ah maamulka Axmed Madoobe ka wada deegaanka sidoo kale waxaa jiro ciidamo kale oo ka tirsan kuwa xooga dalka Soomaaliya oo ka baxay aaga Kismaayo isla markaasina saacadihii ugu dambeeyay gaaray deegaanka Raaskambooni oo hadda furinta dagaal ee u dhaxayso dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo maamulka Jubbaland noqday arintan ayaa u muuqato in ay faraha ay ka sii baxayso xiisada dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo Jubbaland waxaana ay Jubbaland ay dhankeeda wadaa abaabul dagaal oo xoog leh oo ka dhan ah ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ay maanta iyo maalmihii ka horeeyay ay ku daabashay halkaasi lama oga sida ay wax noqon doonaan waxaase laga cabsi qabaa in uu qarxo dagaal toos ah oo u dhaxeeya labada dhinac si kastaba diyaaradaha maanta tegay Raaskambooni ayaa ku soo aadayo iyadoo dhawaan Jubbaland shirkadaha dulimaadyada ay uga digtay in ay ka degaan magaaladaasi maadaama ay jirto xaalad adag iyo waliba dhaqdhaqaaqyo ciidan oo iska soo horjeedo waxaana la warinayaa hadda in Jubbaland ay ku fashilantay qorshaheedii ahaa in ay xakameyso diyaaradaha ee ka tagayo magaalada Muqdisho ee tagayo Raaskambooni isla markaasina halkaasi ciidamada ka dejinayo kuwaasi oo qalqal xoog leh ku abuuray maamulka Axmed Madoobe wararkii iyo macluumaadkii ugu dambeeyay oo aanu helayno ayaa waxay sheegayaan in haatan laga baqdan qabo inuu qarxo dagaal toos ah oo dhex maray dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo Jubbaland maanta waa ay soo hadashay hase yeeshee hadalka Jubbaland intaan eegin waxaan ka hormarinayaa war kale oo isla arintan la xiriira waxaa la warinayaa ciidamadii iyo wafuudii maanta gaaray ee deegaanka Raaskambooni ee gobolka Jubbada Hoose ee Soomaaliya inay la socdeen ciidamo gaar ah oo ka tirsan xafiiska ra'iisul wasaaraha Soomaaliya isla markaasina hordhac u ahaa wafdiga ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ee tagaya deegaankaasi sidanu ka soo xiganay saraakiil muhiim ah oo ka tirsan dowladda Soomaaliya ciidamadan la iskama geynin ee kuwa ilaalada qaran maanta halkaasi ee waxa lagu daray gaadiid gaashaaman oo ah kuwa aanan xabadu karin kuwaasi oo qorshuhu uu yahay in marka ra'iisul wasaaraha Soomaaliya